السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب channel ككروين أكاديمي. إن شاء الله تعالى فيديو كان وحبضنا يكفيدو طبعا كهذا لطنا قرافاتك قيبة كم قرافاتك فوركس trading نوحن لو يقانو myths of forex trading سيدوكلا إن شاء الله تعالى 10 يورو قابنا إذن بريدنا تاسو forex trading إن لبرتيو إن كلامي فضود هاي سيدوكلا فائدوينك أكفلين كرتيد لحظة بلوضة وهرسو iyo 10 sano ugu horeyso 5 ilaa 10 sano ugu horeyso marka dadka badankood fikrada khaldan ka qabaan markii noqoto saddexdan wax oo ah barashada forex trading iyo sidii ma adag tahay soo fududahay sidoo kale intee faa'iido ayaad ka filan kartaa inaad ka samaysid 6 bilood ugu horeyso sidoo kale intee faa'iido ka samayn kartaa 5 sano ilaa 10 sano ugu horeyso marka insha Allah taala waxyaalo badan ka faa'iido doontaa hadii aadan wali channelka subscribe dhihin maxaa sugaysaa subscribe dheh معلومات بدنا وكفاية دوتا channel إن شاء الله تعالى سيدو كله like صار فيديو أن سيف يعني يعاون دوتا إن شاء الله comments كان فكرة ده حاجة كسو قرأ محاول لنا ساب فيديو كان سيدا بيهاد سيدا بان محاولنا شين كرنا معلومات كي باج علان لدينا أركتد إن شاء الله تعالى صقرتها فكرة دي هنا أدي هذا أتاني الرسول الكريم أتاني الصديق أتاني عمر أتاني الرجال الأمات الضلال اوكي walaalyaal kusoo dhawaada qaybta ugu horeysa videoga insha Allah taala saa la socotaan Instagram-ka hadaad iga follow gareyn horta iga follow gare oo kurweyne waxa idin ka soo weydiiyay qaybaha kamid quraafaadka waxyaalaha u maleynaysa in quraafaad yihiin inaad soo qorataan dad badan fikrado badan ay soo qortaan waxyaalo badan ay soo qoreen aad iyo aad u mahadsan yihiin qof walba fikradihiisa soo dhibtay idin kaga mahadcelinaa taas marka insha Allah taala qayba kamid ah waxyaalaha ugu badan ee soo laabto markay noqoto quraafaadka iyo waxaad soo qorateen ayaan ka hadli doonaa insha Allah taala mid ugu horeyso oo marar badan soo laabatay waa okay afiriyo okay lisku dhaniya walaalkeen alxaaji 143 maxamed haray wuxuu dhahay dadka qaar waxay aaminsan yihiin forex dambi waa oo xaraan ku jirto taas maxay kula tahay ustaad midaan arintan xaraanta marar badan soo laabatay waxayna kamid tahay su'aalaha marar badan zaidka li weydiiyo markay noqoto dhinaca Instagram-ka culimada qaarna waxay dhahaan waa xaraan qaarna waa xalaal marka way isku khilaaf culimada laftirkooda isku khilaafsan forex markay noqoto xaraanteeda iyo xalaasheeda markii aan dhageysto culimada dhahay waa xaraan fikradii ka qaban iyo siday u shaqeyso forex oo dhan ayaa aniga ila khaldan markii aan dhageysto kuwa dhahayo waa xalaalna xogaa way yara fahansan marka aniga sidaan u maleynayo aragtida waxay tahay qaybta xaraan ka noqonayso forex trading iyo suuqyadan online-ka waxa waaye waxyaalahan loo yaqaan binary trading digital trading brokerku ugu weyn uu yahay IQ options dad badan way soo weydiiyaan aniga waxa ku dhahaa iska daayaha aadina dhinacaas sababtana waxa waaye markasta faa'iidada sameynaysid ayaa xadidan tusaale hada ku sii $100 kasto aad gelisid in waxa ugu badan sameyn kartid waa $80 meesha forex trading $100 walba gelisid aysan xadidneen waxay ku xiran tahay setup-ka helaysid ganacsiga gelaysid iyo inta faa'iido sameyn kartid aniga ganacsiga qaar kood $100 tusaale $100 hada gelisid ilaa $600 ilaa $1000 ka sameyn kartaa marka faa'iido ahaan way xadidan tahay sidoo kale markay noqoto binary trading waxaan loo yaqaan b-book brokers waxaan casharada si fiican uga hadlo ganacsigan forex-ka lacago ayaa la sarifaya lacago ayaa la iibsanaya oo la iska iibinaya marka aniga qofka dhexdhexaadka no ah waa brokerka waa dilaalka aniga ganacsada ahaan markii aan ganacsi galo ganacsigayga suuq weynaha waxa u diray waa brokerka ayaa dhexdhexaadna oo suuq weynaha u diray ganacsigayga binary options wax suuq weyna loo diro ma jirto sababta waxa waaye markii aad ganacsi gashid waxaad leedahay okay asset baad dooranaysaa tusaale ahaan euro US dollar dooranaysaa waxaad leedahay saacad ka bacdi ama 10 daqiiqo ka bacdi qiimaha euro dollar intuu ka hooseynaya ama intuu ka koreynaya haddaan saxsan tahay saadaalintada ay saxsan tahayna 80% baa helaysaa inuu dhexeyso 80% ilaa 85% intaa gelisay laakiin forex sidaas uma shaqeyso forex faa'iidadaadu waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa qiimahan
marka haddii aad dhahdid okay euro dollar wuu dhaqaaqayaa markastuu kor u dhaqaaqayaa oo aad ganacsi geshid markasta inkastuu kor u dhaqaaqo faa'iidadaada way sii badanaysaa. laakiin binary options waxay ku xiran tahay kaliya ama inta ka hooseynaya ama inta qiimaha dooranaysa qiimaha suuqa hadda maraya ama uu ka koreynaya ama uu ka hooseynaya waqti xadidan. marka taasna waa sidii u shaqeyso waxaan book trading aniga ganacsi dhaba uma arko dad meel fiican oo ka najaxay ma arkin. marka anyways midaas xalaasha iyo xaraanta taladayda waxa waaye talada aan walaalahay usoo jeedinaya waxa waaye aniga Bashiir ahaan markii aan forex ka shaqeysanayo waa ku qanacsanahay inaysan xaraan ahayn. waxaan ku qanacsanahay waxaan sameynayo wax interest waxaas oo dhan inuu ku jirin just aan ahay qof ganacsada oo lacagahan dhaqdhaqaaqooda ka faa'iideysanayo. taasna waa ku qanacsanahay personally Bashiir aan shakhsi ahaan. adiga haddii aadan ku qanacsanayn oo ku dhubeyso oo aad dhibsanaysid iska daa. ganacsiyo badan baa jira adduunyada raadso waxyaalo kala sameeyo markii noqoto online markets ganacsiyo badan aad sameyn kartaa jirto waxyaalo kale research ku samee tan iska daa haddii ku dhibeyso waay. okay midaan marar badan soo laabatay dad badan baa dhahay waa xaaraan ma xalaal baa waxaas oo fikrada soo diitay xaggaasaan uga gudbaya insha Allah tacaala haddaan fiiriyo midda kale mid ayadana marar badan soo laabta waxa waaye waxa quraafaadna ay tahay waa myth. waxaa lagu leeyahay dad baa jira qaarkood oo ka iibinayo fikrad there is a strategy that wins 100%. waxaa jirto istaraatiijiyad ama system 100% markasta guuleysta. waxaas waa been suuqan sidiisa wuxuu ku saleysan yahay suurtagalnimo. istaraatiijiyad rayso 100% ma jirto. istaraatiijiyad kasta waxay leedahay waqti ay guul dareysato iyo waqti ay guuleysato. adiga muhiimadaada waxa waaye ma ahan inaad raadisi istaraatiijiyad 100% guuleysato because ma helaysid hadda ku sheegay ma helaysid. suuqan aniga ilaa 6 sano ku jiray mana arkin wali adiga muxuu ahaa faa'iidada waxa ku jirta markasta oo istaraatiijiyadaada ay guul dareysanayso inaad maareysid halistaada oo xakamaysid khasaaraha ku soo gaaray. laakiin markasta ay faa'iideysanaysana oo istaraatiijiyadaada ay guuleysanayso guulahaaga aabadisid faa'iidada xaggaas ku jirta. laakiin haddii aad tahay qof ka daba orday istaraatiijiyad 100% guuleysto suuqan meel ma ka gaaraysa hadda runta idin sii sheegaya. okay walaasheen muna waxay tiri okay inuu xaraan yahay waa wax mar badan soo laalaatay ka socono. farxaan wuxuu dhahay tanna waa mid kaalay signal ka iibiyo iyo lacagta dhiibo. marka kaalay signal ka iibiyo signal marar badan baa Instagram-ka ugu hadlay wax faa'iido ay leedahay malahan responsibility-ga ya iska qaadaysa qof kale u dhiibaysa mana tihid qof financially free ma ku noqonayso waligaa signal qof ku xirnaanaysa ma fiicno waa idin kala talinaya. okay qof kale wuxuu dhahay walaashan Zia_Sayid waxay tiri dhaqsi looga taajira forex bayn weyn ay tahay 100%. taasna waa mid kale in dhaqso looga taajiro suuqan dhaqso ma looga taajiro waqtiga qaadanaysa waa ganacsi caadi ah. hadda isku dayday inaad dhaqso uga taajirtid waa iska daba wareegaysaa oo meel ma ka gaaraysa. okay Ahmed Abdul Jalil wuxuu dhahay $1,000 keenso waa lagu maalgelinaa 30 maalin ka bacdi kun kale helaysaa kaagii hore waa lagu haynaya. taas waa myth oo waxay xamar ayaantii dhow ka socday Soomaaliya zaid uga socday marar badan oo ka hadlay January Instagram-kayga tag January storyadii January save gareeyay fiirso dib u fiirso waa arkaysa anoo dadka kala talinayo arintan dadka lagu dhacayay. okay cleverness mother okay afeeriyo wala qof kale wuxuu dhahay easy money get rich quick 3 times account in few weeks secret strategy that doesn't lose etc. waxaan oo dhan waa myths. haddii aan Soomaali ku fusay lacag fudud muxuu ahaa dhaqso uga taajir uga noqonaysaa 3 jibaar account-kaaga 3 jibaar ka dhigaysaa dhowr isbuuc gudahood muxuu ahaa istaraatiijiyad oo secret ah oo aanan guul dareysan. waxaan oo dhan waa myths. waxaana ku faraxsanahay dadka badanka dadka aniga i follow gareeyay inay si fiican u fahmeen waxyaalahan khiyaaliga oo dadka laga dhaadhicinayo dadka lacag badan looga sameynayo looga faa'iideysanayo dadka aan suuqan si fiican u qan. taas aad iyo aad ugu faraxsanahay alxamdulillah. okay walaalkeen walaashan ma hubo Marsha walo waxay dhaheen ustaad waxaa ka mid ah in lagu dhaho marka aad bilowdid
isla markii waad faa'iideysaa. taasna waa mid kale, markii dadka qaarkood waxay kugu soo jiidanayaan istiraatiijiyadda baranaysaa akademiyadiina kusoo bir, isla markiiba waa taajiraysaa, isla markiiba qani ugu noqonaysaa, isla markiiba faa'iidooyin ka sameynaysaa. aniga taas ardayda kuma dhaho. ardayda waxaa muhiima waa sameeyaa maskaxiyan siday u fikrinayaan, waxay filan karaan ayaa isku daya inaan maareeyo mindsetka. marka taasna waa iyadana waa wax kale oo khiyaali ah, wax kale oo muxuu ahaa khuraafaad ah. okay, qofka wuxuu dhahay muddo bil ah ku baro suuqa binary option, ustaadkuna ku dhahaya anigu 4 sanaan suuqan ku jiray. dadka qaar waxay ku leeyihiin muddo bil ku baro binary options, ku samee ku taajir. anigana 5 sanaan meeshan ku jira. marka wallahi September 2014 marka hadda 6 sano xataa wax badan ma kaarsano. okay, ka socono. okay, aan ka socono. waxaa isku dayaa khuraafaadyo oo kuwa mid kale xaraam iyo xalaasha marar badan soo laabta, taas waan ka hadlay. okay, inuu forex yahay shirkad cid khaasa ay maamusho, may taas waa iska khuraafaad. cid maamusho mana, waa suuq weyne, suuqa adduunka ugu weyn waaye. okay, ka socono. waxa ugu badan midda xaaraanta. okay, tan walaalkan cumar uu dhahay in ay dad qof walba uu ku dhahayo aniga ayaa haya sirta forex, iska khuraafaad ayadana. qofkaas uu kusoo jiinaa. binary ma khuraafaad ma binary khuraafaad ma ahan, laakiin aniga ganacsi ila wanaagsan ma ahan. waa wax oo caadi loo sameyn karo inkasta. okay, midda ugu dambeyso waxa waaye forex waa easy, ma khasaaro ma jiro. signal 95% win, walaalkan daahirsan weyne. taasna runta aad iyo aad ugu fogtahay inay forex easy tahay, si dhaqsan looga taajirayo. muxuu signal lagu siinayo 95% guuleysanayo. guys, waxyaalahan waxaa kamid ah waa khuraafaadiyada forex trading. insha Allah taala waxaan rajeynayaa qof walba videogan fiirsado in muxuu fikradahooda xoogaa ay isbedeshay. qofkii suuqan ku cusub waayo oo khuraafaadyadan ay maqlayaan, xoogaa fikradooda ay isbedeshay. insha Allah taala taas waa rajo weyn aan ka qabaa. okay, qaybta labaad oo video waxaa uga hadli doonaa 3dii waxaa hore aan kugu sheegay. marka insha Allah ka faa'iideysi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا قيبت اللبات يقيبت قدام بيسي فيديو إن شاء الله تعالى وحيالها أنا صوري قرقري just وحرباه إن إذن فانسيو مسكحيا قفك جناح صدها حصوب فوركس كسدو أفكرايو يو سيدا أوها بون أي تاي إني أفكران ضدك مركي سوق بلا بيان يسيدا أسكت ضيو أرضي دي إنا كدك إن شاء الله مسكحيا فكرة أهان مركا صدح وعبا كان لزنا وحواي وفائدونك 6 bil ee ugu horeysa aad filan kartid. sidoo kale fudeedka barashada forex sidee u fudud, wax adag miyaa mise wax fudud. qaybta ugu dambeysana waa faa'iidooyinka 10 sano ee ugu horeysa. markii qofka uu muxuu ahaa bilaabaya forex maskaxiyan sidaan u fikiraa, sidii u fikiraa sidaan. marka qaybta ugu horeysa ah faa'iidooyinka 6 bil ugu horeysa, qofka wuxuu isleeyahay faa'iido aad iyo aad u badan buu sameyn karaa. waatana waxaan yiriiska isticmaalayaa si aan u dhaqdhaqaajiyo. marka faa'iido yar iyo faa'iido badan, qofka markuu cusub yahay faa'iido badan ayuu suubinaya isleeyahay. sidoo kale fudeedka barashadeeda, markuu cusub yahay ganacsada cusub wuxuu moodayaa aad iyo aad inuu u fududahay, sidaas daraadeed baashaas xaggaas u dhigay. qaybta ugu dambeyso ah faa'iidooyinka 10 sano ugu horeeyo. markii uu qofkan ganacsadahan cusub xoogaa uu soo niyad jabo, soo daalo, lacag badan soo khasaariyo, uu ka niyad jabaya, wuxuu isleeyahay 10 sano ugu horeysa xataa wax faa'iido uu sameyn kara malaha. marka aniga ganacsada cusub markii aan muxuu ahaa inagu soo biraan arday cusub, maskaxiyan waxaa jeclahay qofkan waxa qaybta ugu horeysa ah faa'iidooyinka 6 bilood ugu horeysa uu sameyn karo. just waxa uu sheegayaa hey waa cusub tahay, ganacsi cusub waaye, waxaan waa ganacsi cusub oo bilaabisid, waa inaad u qaadatid si ganacsi dhab camal ah. 6 bilood ugu horeyso run ahaantii wax saas u badan ma sameynaysid. marka xoogaa gadaala u soo celiya, waxaa dhahaa 6 bilood ugu horeyso realistically wax badan ma sameynaysid. taas hadda inaad la socotid ayaa rabaa inaad ka warqabtid insha Allah taala. sidoo kale
dad badan waxay moodayaan inay fududahay aad iyo aad u fududahay, laakiin waxa uu sheegayaa dadaalka iyo waqtiga badan iyo juhdiga badan inuu geliyo ay tahay. Marka waxa uu sheegayaa inaysanba saas u fududeen ee ay uu dadaali doono, uu u baahnaan doono waqti badan inuu marka xoogaa ayadana waxa uu sheegaa zaaid uma adka, laakiin zaaidna uma fududo. Marka waa soo dhaqaajiya ayadana maskaxiyan waxa ku dhahayahay waa inaad dadaashid, waa inaad juhdi badan gelisid. Qaybta ugu dambeysa maadaama laga yaabo ganacsadahan inuu yahay ganacsado xoogaa soo jabay, sanad iska daba wareegayay, marka uu ka niyad jabay wuxuu isleeyahay 10 sano ugu horeysa wax badan ma sameynaysid, laakiin realistically waxa uu sheegayaa actually hadduu dadaalo lacago badan uu save gareeyo, uu dadaalo, uu ka shaqeeyo technical analysiskiisa, psychologygiisa, probabilityga wixii la mid ah, inuu lacag aad iyo aad u badan uu ka sameyn karo ganacsigan. Marka xoogaa tanna waa soo dhaqaajiyaa oo waxaa isku daya markay noqoto saddexdan wax inuu ganacsadahan ama ardaygan uu ahaado qof dhexdhexaada, si u fikirayo ay ahaato dhexdhexaadnimo. Marka again marka la soo celina qaybta ugu horeyso ah faa'iidooyinka 6 bil ugu horeyso, waxaa laga yaabaa yes inaad bisha afaraad bisha saddexaad inaad xoogaa samaysid waa laga yaabaa, laakiin realistically waxa uu sheegaa wax badan ma sameynaysid. Marka taas waa soo dhaqaajiya because qofkan wuxuu arkayaa dad ganacsadayaal waxyaalo soo gelgelinaya Instagramka, wuxuu isleeyahay hey taajir kaga noqo baashan, laakiin uu sheegayaa hey dadaal badan u baahan tahay, waxyaalo badan iyo hurdles badan iyo struggle badan iyo dhibaatooyin badan baa kusoo mari kara. Marka 6 bilood ugu horeyso waxna ha filan inaad sameyn doontid maskaxiyan, waxna ha filanba inaad sameyn doontid, just waxaa focus ka saartaa waxbarashadaada, sidoo kale fudeedka barashada zaaid uma adko, laakiin zaaidna uma fududo. waxaa laga dhaadhicinayaa hey dhowrka isbuuc ugu horeysa waxbaa ku barayaa dhaqsana lacag waa sameynaysaa, 1 bil isii lacag badanaa sameynaysaa. taasna waa khuraafaad, waa wixii hadda dhow ka hadlayay. sidoo kale faa'iidooyinka 10 sano ugu horeysa maadaama ay jirto wax loo yaqaano compound interest, lacag badan waa sameyn kartaa. marka niyad jab iyo waxaas dhan xoogaa kora usoo dhaqaajiya, waxaa ku dhahaa wallahi 10 sano ugu horeysa suuqan meel fiican ka gaari kartaa, 5 ilaa 10 sano ugu horeysa. marka waa kaasa insha Allah qaybtan intaas kusoo gabagabeynaya. markale waxaa idinka codsanayaa inaad like saartaan videoga, commentiga aad wax fikradiina kusoo qorataan, macluumaadka jeclaan lahaydeen inaan ka hadlo, maxaad ka faa'iideen videogan, please fadlan waan idinka codsanaya. waxa ugu dambeeya idinka codsanaya waxa haddaadan weli subscribe dihin maxaad sugaysaa? subscribe insha Allah tacaala. Assalaamu calaykum.